Bismillahirrahmanirrahim. Magacaygu waa Axmed Afi Cabdi. Maanta halkan waxaan u soo fariistay klibkan aan u duubayaa dhibaato naga haysata dhanka siyaasadda iyo saami qaybsiga. Anigu waxaan ahay afhayeenka beesha Facye, waxaan kaloo nahay siyaasiga beesha Facye, waxaan ahay ninka u ololeeya ama u dooda xuquuqda beesha Facye. Beesha Facye waxaa dulmiyey beesha ay walaalaha yihiin ee Mareexaan. Sida aan wada ognahay oo qof kasta Soomaaliya uu og yahay, Soomaaliya nidaamka ay ku dhisan tahay ee hadda wax ku qaybsanayso waa nidaam qabiili ah oo 4.5 ah. Qolo walbana qabiilkeedii bay raacday. Annagu waxaan ka mid ahay Foorki, waxaan ka mid ahay beesha Daarood, waxaan ka sii mid ahay beesha Sade. Waxaan wax ku qaadanay magaca guud ee Sade. Magaca guud oo Sade waxa lagu qaatay 14 xildhibaan oo golaha shacabka iyo 3 senator. 17 xildhibaan dowladda federaalka ka yimaado dhamaantood waxa qaatay beesha Mareexaan. Naguma aysan soo noqonin. Waxaan nahay beel guud ahaan Soomaaliya ku qatan. Waxaan qatanay shalay iyo maanta midna ma ahan. Waxaan qatanay 20 sano la soo dhaafay maanan helin wax matalaad ah. Waxaan nahay muwaadiniin Soomaaliyeed xaq u leh inay helaan matalaad. Waxaan ka soo dhacnaa waxa la dhihi jiray waxaan nahay Facye waa Sade Daarood, waxay ka soo dhacdaa duq Daarood ahaa. intaasna ma aan helin waxaan xaquuq iyo xaq u lahayn. waxa sadbursi siyaasadeed inagu sameeyay walaalahana Mareexaan. waxaan kala hadalnay dhaqan, waxaan kala hadalnay waxgarad, waxaan kala hadalnay siyaasiyiin, waxaan kala hadalnay dhalinyaro. waxba arinta ayada ay kama soo naasacdaan. mar labaad baan haddana halkan oga diraya dhaqanka, siyaasiyiinta iyo dhalinyarada iyo waxgaradka iyo haweenka intaba arinta ayada ah inaysan ina qaban, walaalahana aysan inaga qaban. in badan haddii arintaas aan ku soo sameernay kuna soo jirnay intaan ka badan kuma jiri karno. waxaan leenahay marka koowaad walaalaheen dib isugu noqda, arintaas wax ka bedela. walaalihiin baan nahay, arintaas inaga makiin qabato. waxaan kaloo leeyahay dulmiga intaan aan ku jirnay aan u soo dulqaadanaynay kulley waxaan u malaynayaa dawladdu de waxba kama aysan ogeyn. maxamed xuseen roobana bardhow uu yimid waxba kama oga arinta ayada, laakiin guddiga doorashooyinkaba intaba waa gaarsiinaynaa dulmigaasa intaa ku soo jirnay. haddana inooma muuqato xitaa qaab aan kaga bixi karno iyo waddo aan wax ku heli karno, maadaama weli lagu jira nidaamka 4.5 ah oo qof walba calankiisa qaadayn oo doorasho cod iyo qof aan la gaarin. inooma muuqato waddo aan tii ayada kaga bixi karno. laakiin muwaadiniin Soomaaliyeed oo 20 sano ee la soo dhaafay aan wax xaquuqa iyo saami midna Soomaaliya ku helin baan nahay. si walba oon xal wax ugu raadin karno ama aan hadal ku doonan karno ama aan samaan ku raadin karnana waa ku raadinay, laakiin nooma ayna suuragelin. waxaan xaq u lahayn inaan helno. waxaan rabaa oo kale inaan sheego oo aan ka hadlo marka laga soo tago matalaad la'aanta reerka guud haysato, dhibaatooyin kale ay haysato. ma jiro hal qof oo reerka iyaga ah oo nidaam dawli ah maalin ka soo muuqday ama u shaqo tagay. ma jiro hal qof oo Facye ah oo ama dhalinyaro ah oo wiil iyo gabar oo wasaarad u shaqo tago 26 wasaaradooda dawladda. ma jiro labada maamul goboleed ee aan deegaan ahaanna degno dad ahaanna ka soo jeedno Jubbaland iyo Galmudug. ma jiraan wax aan ku leenahay haba yaraatay oo maamul ah. wasaaradaheeda kama muuqano oo kuma jirno. dawladdu kuma jirno. meel aan Soomaaliya guud ahaanteeda aan ka soo muuqano ama aan xime ku leenahay haba yaraatay ma jirto. waxaan codsanaynaa oo baaqayga uu ku wajahan yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble wuxuu ku wajahan yahay guddiga doorashooyinka. haddii ay fariinteedii iyo cabashadeedii soo gaarto muwaadiniin Soomaaliyeed oo dalka xaq ku lahaa baan nahay inaad arrintanada wax ka qabataan, hoosna aad u fiirisaan, cidnana idinagu hadlay. waxaan kaloo leeyahay dhaqanka reer Sade meel kasta oo ay joogaan wardad islaam oo wada dhashay baan nahay, ehel baynu nahay. waxaan in badan baan ku jirnay, in badan baan u samreynay oo u dulqaadanaynay, in badan baan walaalnimada iyo waxa inaga dhaxeeyay waxaan isunahay aan hoos u fiirinaynay. wax badan baan leeyahay walaalahin way isgaran doonaan, waxbayna iska bedeli doonaan. laakiin waxaan moodaa maalinka ka dambayso wixii inaysan waxba ka soo naasacdaanayn. hadal inaga dhamaayay, shir hoose inaga dhamaayay, cabasho inaga dhamaatay. walaalayaalow intaan sidaan nagama keen qabato, dad wada dhasho ehel aan nahay, sidaan wax ka bedela. waxaan rajaynayaa inaad sidaan wax ka bedeli doontaan oo aad isgaranaysaan. ayaguna baaqaasu sidaas gaarka ugu socdaa. waa mahadsantihiin.